madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo maalmihii la soo dhaafay ay ku joogeen dalka aan walaalaha nahay ee Sutaga Imaaraadka Carabta madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa dalkaas waxa uu kulamo la qaatay madaxweyne Maxamed bin Saayid oo ay ka wada hadleen kor u qaadida xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal fududeynta sharciyada dalku galka isku socodka badeecada kobcinta dhaqaalaha horumarinta bangiyada iyo xoojinta maalgashiga dalkeena sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka isku tag Imaaraadka Carabta isagoo ka dhageystay warbixin ku aadan caqabadaha iyo tabashooyinka ay qabaan waxa uu sheegay in dawladdu dadaal ku bixinayso wax ka qabashada cabashooyinkooda waxa kaloo jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud laga helay caabuqa COVID-19 maanta kadib markii baaritaan lagu sameeyay xaaladda caafimaadka madaxweynuhu aad bay u wanaagsan tahay calaamadihii COVID-kana ma laha madaxweynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay waxa uu si caadi ah u wadan doona hawlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegida qaranka isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira COVID-19 waad mahadsantihiin